roobab lixaadle ayaa waxay ka da'een gobolka Sool gaar ahaan degmada Xudun iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaa ka da'ay roobab lixaadle. Haddaba si aan xiriir qoto dheer ula yeelano waxaan khadka telefoonka aan ku wareysanay Xasan Muuse Dacarbe oo ku sugan degmada Laasacurdan. Xasan aan ku soo dhow. waan ku dhawahay bahda danjiri bal ka waran xaaladda deegaankaas waa sidee xaaladdu deegaankaas aad iyo aad bay u fiican yihiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin baa lagu jiraa guriguna way ka curteen oo si wanaagsan bay noo heleen ilaa xalay ilaa habeen hore waxaa ka da'ay roobab lixaadle sida wararku nagu soo gaarayaan bal ka waran roobabka iyo xaaladooda haddaan ka warramo roobabka bahda danjiri aan uga warramo roobabkaasi waxay noo heleen aad iyo aad u fiican oo u qiimo badan deegaankuna wuu wada rooban yahay roobkaasina ilaa muddo sanad iyo bar ahaa dalkaasi wuxuu la daalaadhacayay abaar xooluhuna way taag darnaayeen oo way jilicsanaayeen laakiinse haddeer ilaahay raxmadiisii baa u timi aad iyo aad bay u fiican yihiin roobabkaasina way ishaystaan ilaa deegaanka Xudun ilaa Laasacurdan ilaa meesha la yiraahdo Arbogays ilaa la yiraahdo Sarmaayo ilaa meesha la yiraahdo Godaalo ilaa meesha la yiraahdo Holhol deegaankaas oo dhan aad iyo aad bay u rooban yihiin waxaana ku cadaynaysaa arrinka gaadiidka isu socodka ee u shaqeeya deegaanada indhawoodu ma kala gooshin way taagan yihiin waxaana istaajiyey roobabka iyo raxmadda ilaahay keenay subxaanahu wa tacaala waxaad sheegtay deegaano fara badan sidaad sheegtana socodkii iyo hakad ku jira ilaa iyo hadda wax khasaaraha roobabkaas ma ay soo gaarsiiyeen insha allah bismillahi kariim wax khasaare ah oo la sheego oo weyn oo la taaban karo ma jiraan guryo markii horeba iska jilicsanaayo oo u badnaa adigu cadisyo iyo sandaqado waxaasi way iska jirjiraan laakiinse waxyeello aad iyo dunyaba u gaadhay ilaahay cidna kuma yeelsiin kuma keenin bal ka waran dadka deegaankaas maadaama socodkii uu istaagay maciishadu sidee usoo gaadhaa deegaankaas waxaa ka jirta maciishadii gaadheed sidii ingiriisku sheegay yiri bisha abriil baabuurtu ma dhaqaaqi karto baabuurtii way taagan yihiin waxayna u istaageen raxmaadka ilaahay xilka ka keenay xagga adeega bulshada way ka go'an yihiin waayo waxaa la leeyahay baradhadii iyo basashii iyo waxyaabihii asaasiga ahaa oo dadku u cuni jiray laakiinse raxmad baa lagu jiraa rabadaanna waa lagu jiraa insha allah bismillahi kariim dadka deegaanadaas khadka telefoonka ayay aad uga cabanayaan khadka telefoonku ma aad buu culus yahay deegaankaas aad iyo aad xagga labada shirkadood ee shirkadda Golis iyo shirkadda Telesomba way ka shaqeeyaan khadkooduna aad iyo aad buu noogu culus yahay taas waa cillad iska kaaya haysata deegaanada iyadan shirkaduna ayna aad ba ugu jeedin oo aad ugu dhaga taagin marka maxaa ugu baaqaysaa dadka shirkadahaas maadaama ka tahay odayaasha deegaanka ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan shirkadaha Telesom iyo Golis inay deegaankan howlgallo aad u fara badan ay ka qabtaan oo waayo ay yihiin deegaanadii ay wax uga soo saari jireen wax uga soo bixi jireen shirkadoodu ku shaqayn jireen maadaama aaladda telefoonku ay haddeer aad iyo aad wax qiimo badan ugu tahay deegaanka oo waxa lagu kala war qaadanayo waxa la isku wareysanayo waxa la iskugu xiriirinayo waxyaabo fara badan ay ka shaqaynayaan aad iyo aad xilli baa jirta xitaa telefoonka aanan ku hadlin oo telefoonka aanan waxba ka maqlin insha allah bismillahi kariim khadkana isaga iska badaaba waa la dayriya xagga khadka kaasina wuxuu ahaa Xasan Muuse Dacarbe oo ku sugan degmada Laasacurdan ee degmada Xudun hoos yimaada waanigu ah Maxamed Cawil Kawtaka Jeli Danjiri Media